shirweynihii shanaad ee xisbiga laanta kulmiye ee dalka Jarmalka ayaa habeenkii xalay waxa uu ka dhacay magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka waxaana lagu dooranayay hogaanka cusub ee laanta xisbiga kulmiye ee dalka Jarmalka waxaana shirkaasi loo doortay inuu hogaamiyo 3 sano ee soo socota Guuleed Cabdi Xasan. Munaasibadan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sare oo ka tirsan xisbiga kulmiye iyo xubno ka tirsan ururada siyaasadda iyo xisbiyada qaranka. Ugu horreyn waxa halkaasi hadallo ka soo jeediyay xogayaha guud ee safaaradda Somaliland ee dalka Jarmalka Ambassador Jaamac Cabdi Giire, Axmed Saalax Cabdi, Mustafa Muumin iyo mas'uuliyiin kale oo halkaasi ka hadlay ayaa dhammaantood hadaladooda waxay ku taxalluqeen soo dhaweyn. waxaan walaalkay hambaliyo u dirayaa Guuleed inuu Ilaahay u fududeeyo xilku qaaday dhammaanna la garab galno la shaqayno haweeniyo ragba. Ilaahay dalkeena nabad iyo barwaaqo iyo bashbash ha inoogu barakeeyo ha inoogu deeqo. Siyaasaddu way kala hadaf duwanta nin kastaaba laakiin kursigan berri buu imanaya. Muuse Biixi madaxweynaha qaranka ninka aragtidiisa diidanow iyo siyaasadiisu yaanu Muuse ku muuqan Somaliland ha ku muuqato. bahda saxaafad ahaan hadaan nahay waad ogtiin oo de kulmiye bariyahan waan isjiijiidanay iyo xukuumadda hadda joogta laakiin si kastoo la isu jiijiito waxa la isugu imanayaa muxuu ahaayay waxa sharcigeenu qorayo wuxuu qorayaa in la ixtiraamo saxaafadda in la ilaaliyo xuquuqdeeda in muxuu ahaayay loo madax banaano way wadan dimuqraadiyeena ku noolahay dalkeenuna waa dimuqraadi shuruucda oo lagu dhaqmo ayaa waxay inaga dhigaysaa inay noqono ummad muxuu ahaayay madaxweyne ilaa muxuu ahaayay shaqaale muxuu ahaayay cadaalad hesha haddii aysan sharciga ka boodno oo sharciga ka talaabsano oo qofkii hadlo caburino oo qofkii ma garanaysaa naga fikir duwanaada aynu ka soo horjeesano dee runtii waxba socon maayaan ka saxaafad ahaan asxaabtoo dhan dhex baan u nay waa la shaqaynaynaa diyaar baan u nay gudoomiye Guuleedna waxaan leeyahay Ilaahay kugu astiro xilka caawa lagu dhiibay. أساسي حزب الكرمية مدن أحمد محمد سيلايو يقدميها ما أنت تشوفيه مدحونه بقى أنت أبو حكوا له لين دور شلا قلنا وحنفتوا ذا يمال كودا أوهرين إنه قفك صعب حرية تيسا يمال كستا وبحكي قبل كرو كجقبته ديمقراطية أنا واحد بلاوي مركز لقى ريبا أساسي ديمقراطية مدحونه ده رجال كاين Guuleed حلا هنبليو marka la raadinayo gudoomiye ama siyaasi waxa la raadiyaa qof karti leh hab dhaqan leh la dareen qaba shicibkiisa wada shaqayna leh inta aan soo sheegayna waxaan ka dhaxarkay walaalkeen gudoomiye Guuleed dadaqoonin aqoonyahana wax badan xisbiga kulmiye tari kara ayaan anigu aaminsanahay qaranku maanta maalin ka fiican yahay ma jiro anu Muuse Biixi geesi baan oo qaarnaa hero baan oo qaarnaa laakiin wuxuu u baahan yahay garab buu u baahan yahay gaashaan buu u baahan yahay hiil buu u baahan yahay golihii guurtidu u baahan yahay guurtidii baa maanta meesha ka baxday marka maanta xisbigan soo socda ee aynu isleenahay wax buu qabanayaa guurtiba ma haystaba waxaan hambalyeynaya walaalkeen Guuleed Cabdi Xasan gudoomiyaha oo u ducaynaya Ilaahay xilka kugu astiro baan leeyahay. gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha cusub ee laanta xisbiga kulmiye ee dalka Jarmalka Guuleed Cabdi Xasan ayaa u mahad celiyay xubnihii golaha dhexe ee laanta xisbiga kulmiye ee dalka Jarmalka ee codka aqlabiyadda ku doortay ayaa waxa uu yiri uga mahadnaqayaa guddigii qabanqaabada ee xafladda quruxda badan ay noo soo qabanqaabisay ee ugu horeeyo golaha dhexe golaha fulinta xisbiga kulmiye waa xisbi guud ah oo wadanka 2 jeer soo qabtay xilkiisa imikana diyaar u ah oo aan ku caawinayno qabto mar saddexaad waa yalla mudakkar MMTV Jarmalka afartaa taayirdan ha igu meesajin adeer maalin walba saas u banjaray imika halkee banjarnay igu dhow yaa rabbi walaala taayiradan baan u baahnaa in way ga banjareen shalayna way ga banjareen maantana way ga banjareen waxaad gashanaysaa taayirada la yiraahdo double start maxay ahayd waa taayiro tayo leh oo wanaagsan oo aan ka banjarayn inaad xagin ka helayaa waxa keentay shirkadda macquul صح meel kasta wala helayaa meel